بسم الله السلام عليكم كسو دواada Zainab Qaali Cookies waxaan maanta sameynaya macmacaan kaasoo laba nooc ah keeg iyo buskud waxaan hadda bilaabanaynaa keegeeni waxa weelka noogu jira 5 xabo ukun ah 2 koob oo bur ah koob sokor ah koob saliid ah qaado baking powder ah qaado vanilla ah iyo yar cusbo ah 2 qaado kakao ah hadda waxaan bilaabayaa inaan ukunteeni garaacano waxaan ku darayaa sokortii markay sokortii isku tirmato iyo ukunta waxaan ku darayaa koobkii saliida ahaa markaan isku walaaqo waxaan ku hadda ku daraa insha Allah labadii koob oo burka ahaa labada koob oo burka ah markaan ku daro insha Allah waxaan ku darayaa qaado baking powder ah qaadadii baking powder aan ku soo daray waxaan kaloo ku daraa 2 qaado kakao ah waan isku walaaqayaa markay si fiican isu soo dhaxgalaan insha Allah yaan isla arkaynaa haddana waan isku soo walaaqay kadibna hadda waxaan noo diyaar weelkii aan ku duban lahayn oo ovenka ku gashan lahayn markay nooga soo baxdo ovenkeeni waxaan hadda ku bilaabay kareemkii waan kala jare qaybtii hoose ayaan kareemka soo mariyay haddana kii kore ayaan marinayaa insha Allah asxaabay sidaa ula socda haddana kii kore ayaan kareemka marinayaa whipping cream ayaan isticmaalaya midka qoyan whipping creamka iigu jira fridge-ka tan qaraacday markaan kusoo dhameeyay sida quruxda badan ee kusoo baxday kor waxaan uga daaday chocolate yar soo xoqe haddana waxaan bilaabanaynaa guda galaynaa buskudkeeni buskud aan soo shiiday ee waxaan ku shubtay weelka waxaan hadda qaraacanayaa butter ani waxaan isticmaalay butter waxaad isticmaali kartaa butter blueband waxaad rabtid iyo Asia sugar markaan qaraacay sida ayuu ku soo baxay haddana kor waxaan kaga shubayaa buskudkii aan weelka kusoo habeeyo soo shiiday ayaan batarkii aan soo qaraacay kor uga darayaa haddana waxaan kor uga bilaabaa buskudkeeni qaybtii kale inta dhineed batarka ayaan kor kaga sii shuban kaga sii hagaajinayaa markaan kusoo habeeyay sida quruxda badan ayuu korna waxaan uga dadaadiyay chocolate yar
sidaa quruxda badan ayuu kusoo baxe. Subscribe, like, share la ii saar insha allah.